wiilkan lacagtan wuxuu ku mutaystay kadib markuu soo sheegay qaraxyo la rabay in magaalada Muqdisho lagu qarxiyo. waxaan ogeyn waqtigii uu joogay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin in hay'adani si weyn ula falgashay siyaasadda markaasi jirtay. falkan markii la eego waa xaalad halisa markii la joogo Muqdisho waxaana sameyn kara falkan oo kaliya saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalkan hal shargareeyo oo meel fog u gaaro. haddaad maqli jirtay wiilkan waa wiil hoog iyo haddaad maqli jirtay waxay Soomaalidu tirahdaba waa laandheere. maanta wiilkan ayaa wuxuu muujiyay fal geesinimo ah. qof walbana falka uu sameeyay wiilkani qof walba kuma dhiirin karto markii runta laga hadlo. wiilkan hadda muuqaalkiisa aad u jeedaan dad fara badan waxa laga yaabaa inay yiraahdaan wiilkan heystan iyo lacagtan wuxuu isku dul saaray wuxuu u dirayaa fariintani gabar ay hore saaxiib u ahaayeen laakiin sidaas ma aha. wiilkan lacagtan wuxuu ku mutaystay kadib markuu soo sheegay qaraxyo la rabay in magaalada Muqdisho lagu qarxiyo. lacagtana abaalmarin ahaan ayaa loo siiyay maadaama qaraxyadaasi uu soo gudbiyo xogtooda. lacagtana cadadkeedu waxay dhameed $20,000. muhiim maaha wiilkan lacagta lagu abaalmariyay markii la eego falka uu ku dhiiraday. falkaas uu ku dhiiraday waxay sababtay in lagu badbaadiyo shacab fara badan aan waxba aan galabsan kadib markuu soo gudbiyo xogta qarax la doonayo markaasi lagu qarxiyo beerta Banaadir. xogtaasna uu soo gudbiyay wiilkaasi hay'adaha amniga gaar ahaan hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA waxay u sahashay in halkaas lagu soo qabto jaakada la doonayay in lagu qarxiyo beertaasi iyo mootobajaaj la doonayay in gudaha beertaasi la geliyo si halkaasi shacabka masaakiinta aan waxba galabsan halkaasi lagu dhameeyo ama halkaasi lagu laayo. falkan markii la eego waa xaalad halisa markii la joogo Muqdisho waxaana sameyn kara falkan oo kaliya nin dhaafay oo markaasi canaha geela si fiican u soo cabay. dadka reer miyiga ah ama dadka geela dhaqda inta badan waxa lagu tiriyaa inay yihiin dad ka geesisan dadka kale. marka wiilkan falkan uu sameeyo markii la eego waa fal u baahan awood dheeraad iyo karti dheeri ah. markii la joogo Muqdisho xubnaha ka tirsan dawladda iyo ama waxa tiraahdaaba dadka qaybta ka ah dawladda federaalka Soomaaliya marka ay dana gaar ah ka yeeshaan magaalada Muqdisho waxay sameystaan ilaalo gaar ah oo naftooda waardiyeysa. balse wiilkan wuxuu ku dhiiraday isagoo qaraxyo soo dusiyay ayuu haddana muuqaalkiisi iyo lacagtii abaalmarinta loo siiyay ayuu wuxuu soo dhigay social media. midaasna waxay ku tusinaysaa amniga guud caasimadda iyo xiriirka ka dhaxeeya dadka shacabka iyo laamaha amniga inuu soo hagaagayo markii la eego dawladii hore ee hogaaminayay Farmaajo. hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya markii magaceeda la soo gaabsho la yiraahdo NISA tan iyo markii uu xilkaasi la wareegay Maha Salaad hay'adaasi wuxuu ku sameeyay isbedelo waaweyn oo la taaban karo. waxaan ogeyn waqtigii uu joogay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin in hay'adani si weyn ula falgashay siyaasadda markaasi jirtay. Maha Salaad markii loo dhiibay hoggaanka hay'adani shaqadiisa ugu horeeyay wuxuu ka qabtaba hay'adani xarunta ay ku shaqeyso. markii xigtana wuxuu hawlgallo amni lagu xaqiijinayo ka sameeyay caasimadda Muqdisho midaas markii dambana sababtay in caasimadda amnigeedii uu soo hagaago. markii xigtana wuxuu hawlgallo amni lagu xaqiijinayo ka sameeyay deegaanada oo markii horeba laga soo abaabuli jiray falalka amni darrada ee Muqdisho laga geysto. midaas oo ilaa hadda ka socota deegaanada ama gobolada u dhow magaalada Muqdisho. dadkii ka falceliyay ficilkan wiilkan uu sameeyay dadka qaar waxay leeyihiin wiilkan wuxuu ka mid yahay isla hay'adda NISA halka dadka kale ay leeyihiin maadaama wiilkan uu soo gudbiyo xogta qaraxyada lacagtana la siiyay. wiilkan waqtigan ma joogo Soomaaliya midaas ayaa sababtay in uu muuqaalkan soo duubo muuqaalkan xogta qaraxyada ah iyo lacagtan isagoo haysta. adna daawada maxay kula tahay xagga hoose komatiga inuu ku referentaada